ما لديت ساسو كلام لا لونتا ينفري سمحوا امارة هذاك ميرينو ان قف كبد بهذا هلا بابي باسوكا يواني ينلوالك dabcan codkaasi idinkuma cusbo intiinii xilligaasi joogtay waa cumar sheekh axmed cumar shaam oo codkan ku jilayay mid ka mid a sheekooyinkii ugu xiisaha badnaa ee ka bixi jiray shabakadda warbaahinta Shabeelle. waxaan kaloo goobjoog u ahay aniga oo biro qiyaam la iisoo istaajinaya inaan arkay kaabsal maaragtay lacay oo waxa laga tirtiraayo expire date-kii oo lagu qorayo la tiimbaraynayo dibi nool aad dhulka lagu duugay dibi nool aad god inta loo qodo dhub inta la sii la duugay waxa la inta soo dhaafi karayaan abdi bilaa ma afar meedood afar qabri hay qabriga lama boqol la markaas wala يا أخي سامد يا أخي كون بدنا بخذ لنا عندك منه كون كلينت ويا ما أنا بالميت كلام لنا كون كلينت ما أنا بالبيت أنتوا أنا waa xaaji lugooyo هذا ما حد بقولك بعد ما انا قلت لك قولها يا ما هو يك الاد بي مو يك لابو عمو لعنانته بناك كمرة انت ابتيك تارك كرتي يا لا انت ابتيك انا قولي ما قبحي انا قلت لك قول يا عاد نقول انا كدنبي ما حد ربط ادير وانت اللي بجا ما بلاوي انا ما اول كان يجري مدري شو ما اخذ ولا دي بس بايد ورمشي على عيد كنت عرفت sheekadii qoomamo waxa ay ka hadlaysay Soomaalidii burbursaneed ee deriska la ahayd qaxa dagaalada joogtada ah dhaca isbaarooyinka iyo wax kasta oo ku gidaaman dal burbursan balse haatan Soomaaliya waa nabad waxa ay haysataa dawlad waxana ay sameynaysaa horumar dhinac kasta ah aniga uma aqaan waxaas lacagtan waxaan ku siiyay xaaji lugooyo ninka la leeyahay inaad dabar jabin la yaqaan ku dhufato ciidankiisa hal meel ku sheega la waayo meeluu iska soo qabto iyo meeluu iska soo arka la waayo waxaan rabaa waa jiray iyo waa jiray inaan labada lagu murmin gala goobta dagaalka gala si fiican u gala ciidamada hal la dhaweeyo aaga hore lagu dhaweeyo hal la soo qabto lugooyo hadda hal keen hadda lugooyo hadda keen daba jeex roobi taliskii xaaji lugooyo ayaan gacanta ku dhignay malmaan dambe way yeerkayeen inaan aniga dangaar waaba wataaba ilan ayagaan ku danaysanay laakiin maalmahan inay wax gartaan ayay bilaabeen waaba ka dhaqaaqaya meeshay doontaa u gaarto meesha ugu fiicneed bay maraysa meesha ay hadda ka noosan lahaayeen hadda ayay taagan yihiin annaga kaligeeni helid isii boorsaday anaa hadda show cusub tusay Cumar Shaam ayaa qaybo badan ku lahaa sheekadan isaga oo dhowr magac iyo dhowr codba ku jili jiray horta codkaygan caadiga ku jili jiray oo ina daraflay waxaan ahaa kaaba kooxeedan ahaa macnaha maleeshiyaadka ayaga dhexdooda waxay lahayn moogta liman oo xogaa u madaxweynaha nin laga baqo oo kale waxaan ahaa nin maaragtay oo keebka iyo muxuu ahaay fartaba maaragtay aan kala kicinba oo qof walba macnaha waxaan ku jalayay nin aan gabanin qofka inuu dilo iyo inuu iska fasaxo inuu dilo u fududeed ina daraflan ku jilaa maaladeed saaso kale laa lunta yanfurey simxuu amaarto hadalka ميرينو إن قف كبد بهذا هلا بابي باسوكا يواني ينلوالكس وحياونا عسان لا دي من دابي كل عنق رو مسكين ومتلاي وما انت بايس جد كان واحد حرياي مال الله مرايا مال دكان كي وحكا سوق قداينينا حالي يا بلا بابي وحما كهرن ساكا اكتيس مراينا لما حب نلعب بنانك تعالى هري نسيبك هي يا اخي لما بدي مقالة ذاني ثعد كيدي وحاسب النقضي إلهي أنا موتيهم حاج مريد جو كلام كجلاين دت كان مارت ربنا الدرجة وأنا دقال لما بقولان حاج مريد والله ما نحل حاج مريد هاي أيسونت على أن حريص ده يا إذا هي أن حديث أنت لقيها قبورها أنجينو أنسك جينو قبرك مركي جينا له 11 مليون الله قبري رواية 11 مليون يا خوذات كين بيت لي وحاوطنا لما من انت عبد بالله ما افر ميدود افر قبر هاي قبرك لما بقول الله
markaas waa dhaha yaa khaayse camad yaa kuwaan badnama boqol kuwaan keliyanta waayo maalin walba meed keenaan leeyno kuwaan keliyanta maalin walba soo dhinto waanaan dirar wuxuu matalaya oda dhaqameedu iska matalaya nin iska walaajin loo gooyo annaga hadda maanta meel kale uma soconno hala siiyo odayaasha aniga la jilay. waa sheekadii qoomamo ee baalka dahabka ka gashay sooyaalka Soomaaliya kana bixi jirtay warbaahinta Shabeelle. waa sheeko lagu soo bandhigayay xaaladihii burburka ee xilligaasi taagnaa, dhacdooyinka maalinlaha ah, dhaca, dilka, dagaalada qabaa'ilka, kufsiga iyo hagardaamooyinka dowladaha shisheeye ee dalkeena. waxa ay wax badan ka bedeshay bulshadeena, waxa ay iftiimisay dhibaatooyinkii qarsoonaa ee dalkeenu martida u noqday, waxay wacyigelin u noqotay kumanaan dhalinyaro ah oo xooggooda iyo maskaxdooda ay si qaldan u isticmaali jireen qabqablayaasha dagaalka. sheekadan waxaa ku dhex baxay magac si weyn u qabsaday bulshada. waa maliibaanayaasha lagu liibaano oo loola jeeday maleeshiyaadka ay isticmaali jireen hogaamiyaasha dagaalka. qaar badan ayaa qoryihii dhigay kuna bedelay qalin, maantana heer wanaagsan ka jooga bulshada. way jireen. tusaale waxaan usoo qaadan karnaa nin maleeshiyaad ka mid ah noo sheekeynayay. horta waxaa ilaahay mahadisaad ciyaalka xaafada markay arkeen cabdibile maleeshiyaad saaran dhahaan maliibaanayaasha lagu liibaano waa kuwaan, meel kasta looga oriyey. ayaga naftirkooda yaxyax uu ku noqdo waxay gaareen inay ka yaxyaxaan qoriga ay wateen. cunug waxaa dhacda ninkaa noo sheegay wuxuu yiri qorigayga anoo soo qaataro inaan shaqadeeda soo aado wiilkayga i qabtay wel aabo maliibaanayaasha lagu liibaano maa tahay maxaa waaye qorigan aan wadato subaxaasan qorigayga cabdi oo xaggii yiri cirtoogtaan soo gaday tabakaayar oo aan ninaca iyo xanjada ku gadan waa furtay. sheekooyinka waxyaabaha ay wax ka bedeshay ka mid ahayd. waxaa kaloo ka mid ahaa sheekada iyo barnaamijyadii kale oo idaacaddu ay qabanayso oo tartan aqooneedka uu ka mid ahaa in xaafadahan isu gudbi jiray inay isu gudbaan oo dadka la dhihi jiray xagga hayey heer quraaca joogan ha isku gudbin yaan lagugu dilin ay dadka inay dhahaan balaayana kala hayso dadaaga waxaas ka shaqaynaya oo dhex jooga dadka inay isu gudbin la kala hayo. arrimahaasoo dhan sheekadu way furfurtay. sheekadan waxaa alifay cabdimaalig yuusuf maxamuud oo ah guddoomiyaha shabakadda warbaahinta Shabeelle, waxaana director ka ahaa Cumar Sheekh Axmed Cumar Shaam. Cumar Shaam waxa uu ka hadlayaa muhiimadda iyo ujeedada sheekadan ay xambaarsaneed. waxaa timid in marka la gaaray xilligii boogta la taaban lahaa nimankii hogaaminka kooxeedyada ahaa. wallaahi dhiirigelinna way jirtayoo waxaa la isku dhiirigelinaya dalkan 13 dhalinyaro ayaa xornimadiisii dhexda u xirteen wayna ka gungaareen oo ilaahay ku garab galay. annaga maxaa naga hor istaagaya inaan nimankan hogaamiyaasha ah runta aan u sheegno annagoo media u marsiinayno markii inaan qaab maaragtay oo wax ku fahmi karaan aan sabuuradda uga qorno iyadoo la jilaayo. hor sheekadaas ku bilaabatay. waxay ku bilaabatay sababtay ku bilaabatay waxay ahayd dhibaatooyinka dalka jiray ayaa sababay inay sheekadu bilaabato. sheekada markaas ayaa ambaqaadkeedu bilowday. magacana waxaa keenay cabdimaalig oo qoomama loo bixiyey in qof walba uu ka shalay ama ka qoomameeyo wixii dhacaya markaas. sheekadu waxay furfurtay in isbaarada xataa maleeshiyaadka joogay inay si wanaagsan kula dhaqmaan sababtoo waxay arkeen in la og yahay la socdo. magacyada aad u soo xulateen sheekadaas aad ku dishaan la yaabka lahaa maxaa ka mid ah? xaaji lugooyo kale, ina dareeflo oo kale, ina geedo gooy, cambara dabshidoo kale, ciji dheeroo kale, mara cadoo kale, saban la seexdo oo kale, ina busho madhuuq oo kale. waxyaaba fara badan magacyadii markaas ay wateen sababta xaafad aniga aan macnaha aan deganahay waxaa joogi jireen dhowr nin oo magacyadooda ay waxa aan cajiib haddana ahayd dadka laga baqan oo ahayn ina waranle, ina bareekiyo, ina saas, ina feeradiinle, waxyaaba noocaasaa jira. marka anigana ina googooye iyo waxbaan samaysanay magacyadaasoo dhan waxay ka turjumayaan maleeshiyaadka ka turjumayaan. sheekadan kama aysan marneen dhibaatada ay bulshada ku hayeen ganacsatada daawada iyo raashinka dalka keenta, isbitaalada, dadka waxyaabaha khuraafaadka sameeya iyo dhibaatooyin kale oo dahsoonaa oo ka dhex jiray gudaha bulshada. kama aysan marneen sida hogaamiyaasha
ay u adeegsan jireen dadka sixirka sameeya. waxaan goobjoog u ahaa aniga nin maamul isbitaal ah oo dhakhtarka ku canaanaya hadda waa wallahi weysa korkii ku jirto qofka ugu yaraan $100 waa inaga qaato qofka lama dhihin qofkan wax ma haya masaakiin miya warqamid xataa qadada aan haysan miya lama dhihin adeer $100 mushaarkaaga waa inaad dhacsataa qaran kula xisaabtamo ma jira miya because maya yaa kula xisaabtamaya do it waayo wuxuu leeyahay boqolkiiba imisa isinaysaa 30 mayuu leeyahay dad noole la dilay uu leeyahay dhakhtarkii dhahay sababtoo markuu qaato waxay la mid tahay qofkii dilay soo ya waxaan kale goobjoog u ahay aniga oo bir qiyaam la iisoo istaajinaya inaan arkay capsule maartay lacay oo waxa laga tirtiraayo expire date-kii oo lagu qorayo la tiin baraynayo oo midaan dhicin laga dhigayo wallahi waxyaabihii yaab kala ee aan soo marnay ahayd hadda xataa waa macquul inay jirto laakiin allahu aclam sheekada marka waxyaabahaas nagu dhaliyay BTR aan u bixinay marka daawada waxaan u bixinay BTR awed doctor daawada BTR waxa imaanaya oday TB tuberculosis oo u baahan rifidiin in la siiyo iyo kaniin Etombatu la dhaho ay u baahan yihiin qofkan in la siiyo markaas waxa la doctor مسح كرو سوي BTR على السنة داود يسمع دوك معنا جدا بحال اسبيتال كل شو حتى هذا اللي قاعد بعد تيورا كويرا تولي لبي تونا لوغا دو مالك دميت كيسا لكينا دوك وقت كيسا ماذا اللي قيب وحن كسمعني dadkan wax fuuciyaan ninka la gooyo magaciisa meesha ku baxdo qayb waxay dadkaasan kaga hadlaynaa iyagana sababta tusaalan ku sheegaya markii adiga lagu soo qabto qoorta laga qabto burjiko weyn oo dab ah oo dabkii kulaylka aragtay lagu shubo foox iyo geedo oo qaaci afka lagu geliyo maran lagu daboolo maxaa kugu imaanaya ina caburantid qofkii markii la arko in xog badan qabanay markii waa qorshe laga shaqeeyo ninkii markuu caburo hal mar la deeyaa muxuu dhahaa mar qofka oo dhaamo waa ka doolay waa jinko markaas durbaanka loo tumaya laba nin xog badan garbeega qabanay wala bodbootina qofkii alle qofka waa caafimaad alle sheekada waxay sixirka ahayd waxyaabaha asraarta la yiraahdo ay ahayn waxaan la soo adeegsanaa bayraata majlis dibi nool ay dhulka lagu duugay dibi nool aan god inta loo qodo dhub inta la sii la duugay waxa la inta soo dhaafi karayaan waa dambiye waaweyn wallahi waxa soo dhan waa u baranay hanjabaad walba la sheegay wax walba dhacay hogaamiye kooxadeeda qaarkood waxay gaareen in ay muxuu ahaay ay yiraahdaan qafka maleeshiyaadkeena kamid ah oo soo dhageysanay aan aragno yaa weylak habsi oo ay si tuuganimo ku dhageystaan sheekada sababta runtii sheegaysa ma sheekada iyada qaybaha noocaas ah ahayd maana waxa dhacday meel aan fadhiyay oo lagu wada shaahinayay anina intuu soo badco ninkan qaybtaas jilay haddaan arki lahaa anigana waa fadhiyaa haddaan arki lahaa qori ammaankiisa furayana waa la haystaa hanjabaad dheer maxaa ka radaa adiga haddaan arki lahaa kuwa yaqaanaan aanay soo wada fiiriyeen waxyaaba badanaa iska dhacay laakiin ilaahay waa namootay ilaahay waxba naguma tusin weli waxa ay ka baxdaa iyada oo rogaal celis ah warbaahinta Shabeelle labada duhurnimo si jiilka maanta jooga ay u ogaadaan heerkii uu soo maray dalkooda hooyo. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabeelle, Muqdisho.